asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qisooyinka cakirnaa wakhti dheer kuwaasi oo ka dhacay dalka maraykanka laakiin la xaliyey wakhti kadib ayaa noqotay mid ka yaabisay dadka dalkaasi iyadoo aakhirkii loo helay jawaab su'aashii ahayd halkee ayay ku dambeeyeen qoyskii magstay. fadlan haddaad nagu cusub tahay sabskraibe aan like waa noo muhiim waad mahadsan tahay. aynu ka bilowno bilowga dhacdooyinka qisada. joseph magstein oo ahaa 40 jir u dhashay dalka maraykanka iyo xaaskiisa Summer oo sidoo kale ahayd 43 jir u dhalatay dalka maraykanka waxay ku noolaayeen Fallbrook, California iyaga iyo 2 wiil oo ay dhaleen kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray Jane oo da'diisu ahayd 4 jir iyo Joseph Jr. kaasi oo da'diisu ahayd 3 jir. joseph oo ahaa aabbihii qoyska wuxuu ku lahaa xafiis yar gudaha gurigiisa isagoo ku dhex iibin jiray alaabta la isku qurxiyo ee dabiiciga ah halka xaaskiisu ahayd wakiil dhanka iibka guryaha ah. dhanka kale waxaa jiray nin lagu magacaabi jiray Michael kaasi oo ay walaalahaayeen Joseph kuwaas oo isku dhowaa sidoo kalena iska warhayn jiray. February 9 sanadii 2010 Michael oo ahaa Joseph walaalkii waxaa soo wacay nin lagu magacaabo Charles Miret kaasi oo ay wada shaqayn jireen Joseph. isku day inaad xasuusnaato magacan Charles Miret sababtoo ah waxaynu isticmaali doonaa dhammaadka qisada. kadib markii uu Charles soo wacay Michael oo ahaa Joseph walaalkii waxaanu ku wargeliyey in Joseph iyo qoyskiisii ka maqan yihiin gurigoodii muddo dhan 5 maalmood. markanna Michael wuxuu bilaabay inuu u warwaro walaalkii iyo qoyskiisii sababtoo ah waxay ahaayeen kuwo mar walba iska warhaya mana uu u baran inuu meel u dhaqaaqo ogeysiis la'aan. markanna wuxuu la wadaagay hooyadii maqnaanshaha Joseph iyo qoyskiisii taasi oo sidoo kale ahayd Joseph hooyadii iyadoo u sheegtay inay iyaduba ka warwarsan tahay xaaladda qoyska sababtoo ah waxay wacday saaka laakiin ma jirin cid u jawaabtay. markanna hooyadii waxay u dirtay Michael gurigii si uu u soo indha-indheeyo xaaladda ka jirta halkaas. markii uu sidaasi u soo gaadhay gurigii wuxuu la kulmay isagoo dusha ka xidhan sidoo kale waxay ahaayeen aydii qoysku kuwa jooga daaradda dambe ee guriga laakiin arrinta niyadda u qaboojisay Michael ayaa ahayd in ayda looga tegay weelkii ay wax ku cuni lahaayeen taasi oo ahayd siday qoysku samayn jireen markay gelayaan safar. kadib markii maqnaanshahoodu dheeraaday warwarka ayaa ku sii batay Joseph walaalkii iyo hooyadii markay taariikhdu maraysay February 13 sanadii 2010 kadib waayitaankii qoyska 9 maalmood waxay hooyadii fartay wiilkeedii Michael inuu ku laabto gurigii laakiin markan keliya aanu dusha ka soo eegin taa cagsigeeda uu si uun u galo guriga gudihiisa si uu halkaas uga soo eego cid ku sugan ama wuxuun la xidhiidha raadkoodii iyo halkay ku dambeeyeen. markanna Michael wuxuu u dhaqaaqay dhankii guriga dabcan isagoo gudagalay inuu baadho daaradda guriga sidoo kale wuxuu arkay aydii oo loo dhigay raashin cusub kadib wuxuu si kadis ah u arkay daaqad guriga gadaashiisa ah taasi oo furan dabcan waana sida dhacday oo gudaha ayuu u galay gurigii isagoo ogaaday in gebi ahaanba gurigu yahay cidlo. markanna wuxuu bilaabay inuu baadho gurigii bal si uu wax uun caddayn ah uga helo halkay ku dambeeyeen qoyskii Magstein. waxa kaliya ee ishiisu qabanaysay wuxuu ahaa guriga oo si aan habaysnayn isku dhex daadsanaa isagoo haba yaraatee waayey raad muujinaya halkay ku dambeeyeen qoyskii. ugu dambaynna go'aansaday inuu iska laabto waxaanu fariin qoraaleed warqad ku qoran u dhaafay shakhsiga ayda quudiya taasi oo uu kaga codsanayo inuu la soo xidhiidho. kadib codsigaasi Michael waxaa la soo xidhiidhay shakhsigii kaasi oo sheegay inuu ka socdo ururka u dooda xuquuqda xayawaanada sidoo kale wuxuu dhahay qoyska gurigan degani waa kuwo bilaa naxariis ah iyagoo qaab mas'uuliyad darro ah uga dhaqaaqay aydoodii kuwaas oo haba yaraatee aan uga tegin wax cunto ah. arrintaasi oo Michael ku sii badisay shakigii sababtoo ah muu filayn inay aydooda uga dhaqaaqaan xaalad sidan oo kale ah.
intaasi kadib 15kii Febraayo Michael wuxuu ku wargeliyey bilayskii maqnaanshaha qoyska. Kadib tallaabadii ugu horreysay waxa baadhitaan buuxa lagu sameeyey gurigii, iyagoo ogaaday in waxyaabo badan ka khaldan yihiin gudaha guriga. waxyaabahan oo Michael markii hore ula muuqday kuwo iska caadi ah, waxaana ka mid ahaa cuntooyin loo diyaarsaday in la cuno, laakiin gebi ahaanba aan la taaban kuna xumaaday halkoodii. sidoo kale ukun ama beed, taasi oo diyaar u ahayd in la sameeyo, laakiin la moodo in gebi ahaanba qofkii samaynayay laga dulqaatay. iyo sidoo kale salool buuxa oo hor yaalay TV-ga, kaasi oo ku jiray weelkii carruurtu ku cunaysay, una diyaarsanaa in la cuno laakiin gebi ahaanba aan la taaban. baadhitaan dheer oo ay ku sameeyeen guriga kamay helin wax caddayn ah, taasi oo muujinaysa in dhibaato loogu geystay guriga gudihiisa. sidoo kale albaabada gurigu waxay ahaayeen dhammaan kuwo caafimaad qaba, oo muujinaya in aan awood loo isticmaalin si loo furo. sidoo kale lama helin dhiig iyo calaamado kale, kuwaas oo muujinaya in qoyska la dhibaateeyey. dhanka kale waxay shaki weyn ka muujiyeen sababta ku qasabtay inay sidan kadiska ah qoyska gurigooda uga dhaqaaqaan. waxa keliya ee la og yahay ayaa ahaa in qoyskani maqan yihiin muddo dhan 9 maalmood. sidoo kale waxaa la ogaaday in aydoodii ku xaraysan tahay goob xayawaanada lagu xanaaneeyo, taasi oo u dhow gurigooda. iyadoo kiiskani noqday mid cakiran, kaasi oo aan lahayn dhinac loo raaco. kadib qoyskii waxaa loo diiwaangeliyey kuwo maqan, kuwaasi oo uu bilaabmay baadigoobkoodii si ugu yaraan loo ogaado halka iyo sababta ay u maqan yihiin. waxaan wataa hal codsi, sababtoo ah qisadani aad bay u dheer tahay, waxaanan u kala jebiyey 2 qaybood. qaybta xigta waxaan soo gelin doonaa beritoole insha Allah, waxaanan soo dhigayaa linkigiisa dhanka description-ka ama commentiga u horeeya ama xagga sare ee muuqaalka. intaasi ayuu ku eegyahay muuqaalkeena maanta. fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe, like waa noo muhiim. waad mahadsan tahay.